السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ سلامي دمان أصحابتي قالقة أصحابتي قالقة سيتهين في عنتهين من نبت خفتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا سود دواذا خير إيا فرحد لا سود دواذا وماموانا إيا مركلة إيا برنامج كيني عافماتك قيب كميدة إيا أسو وريكتي شانال كان دمرك صوماليات خير بدن إيا فرحد بدن إلهي إنو ويدينا لمانتين qaybta noo soo wareegtay oo sida qaaska ah insha Allah aan inta ugu falaanqeyn doono waa qaybtan waa gabdhaha raba inay u tagaan dhakhtarka private-ka ama dhaqaatiirta private-ka hal dhakhtar ma aha afkood dhaqaatiir badan waay wadamo badan la kala jooga howlo badan loogu tagaa mar xanuuna jiro marna siyaada la rabaa oo ilaahay idankiisa processka loo yaqaano IVF in la bilaabo lagu tala jiraa meesha dadka qaar ay wax ka fahansan yihiin ama ay ka fahmi karayaan markii loo bilaabo arrinkooda in laga hadlo marka maadaama arrinkan uu yahay topic noo socon doono ilaahay idankiisana uu noqon doono topic loo diyaariyo part badan ama qaybo badan khayr Allah idin ku soo dhawaada channelka dumarka Soomaaliyeed arrinkan waxaa loo wadaa dumarka Soomaaliyeed ee danaynayo inay u tagaan dhakhtarka ama dhaqaatiirta private-ka raba ka wareysto inay ka wareystaan caafimaadkooda marka waxaa la rabaa insha Allah haddii aad rabtay iyo haddii aad rabtay inaad ogaato dadkii u tagay iyo wixii kala kulmeen nala fariisa halkan khayr Allah ku siiyo subscribe saaro nasibood beelka furo haddii aad awoodana suulka kor ugu taag dhanka YouTube si aad u tiraahdo barnaamijkan taxaniisa inaan ka qayb qaato waan rabaa oo aan dhageysto marka waa talawaati ilaahay ka sokow dhageyso arrinkan insha Allah ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaad qalbiga dejisato arrinku waa journey ama waa safarkii ilmo raadinta ilaahay baa bixiyo hadday tahay koobay oo haddaba rabta inaad hooyo iyo aabba noqotaan insha Allah iyo haddii aad siyaado rabto oo ay kuu joogaan Allah kuu deysto ilaahay bay u joogaan khayr Allah ku siiyo soo dhawow waxyaabaha aan ka sheekaysano ama gabdhuhu ay iga garabsadaan aan kala shaqeeyo saaxiibtinimana aan baraha bulshada uga adeego waxyaabaha ugu badanna waxay tahay waa caafimaadka qaas ahaan haweenka arrimaha caadada ugxaanta levelada hormoonada waxyaabahaas oo dhan marka qaybihiyaa sii kala duwan qaybtan waa qaybtii isku diyaarinta awlaadda ilaahay baa bixiye iyo u tabaabashaysigii dhaqaatiirta private-ka ah sida qaaska loo raadiyo oo loogu tago iyadoo laga rajeynayo ilaahay ka sakow inay galaan programkii ilma beerista khayr Allah idin maadaama dad badan la shaqeeyo arrimahana aan kala shaqeeyo dabcan wax waa ka ogahay hadday tahay wixii ilaahay baa wax oge hadday tahay wixii emotionka ahaa ama dareemihii hadday tahay qarash ku bixi karo macquul waa iska qiyaas qof walba waa goonidiisa hadday tahay howl loo baajinayo oo ilaa waqtiga xagga galayo waqti baa loo safraa qaarkoodna isku magaaladaada laga dhameystaa ama isla wadankaaga dadna way safraan oo way duulaan oo way aadaan marka wax badan dad aan ka ogeynaa hawshi galo haddaadan waxba ka fahansanayn qarashka ku bixi karaayo qofka nolosha kula qaybsanayo oo sawjkaaga ah isbedelka uu keeni karo dhararka uu sameyn karo nerfiska uu noqon karo labadiina mid baa lagu dhagi karaa labadiinaba waa lagu dhagi karaa oo dhagistu waa waxba meesha kuma haysiin waxaantaadu waa ever biyihiisu waa ever cilado kale oo caafimaad darraa soo bixi karo inta la isbaabaarayo marka waxaa la yiri shar u toog hay khayr waxba kuuma dhibee marka maadaama dadku ay badan yihiin dantu ay badan tahay barnaamijkan uu culus yahay waxaan jeclaystay inaan channelkan idin keeno maadaama channelkeena kale ee YouTube ama channeladeena kaleba ay barnaamijyo kala duwan ay ka baxaan talooyinkan inaad bal dhageysatid qaybtan yar u qaaskaana aad soo fariisato dabadeedna aad part ahaan ku xirnaato ama qayb ahaan si markaas aad bal maskixiin uga yara dharagto kuma dhigi karo waa ku dharji karaa ilaahay baa wax dharjiyo laakiin bal wax ka faham marka jugta juka kaaga horeyso informationka markaad wax ka sii fahansantahay waa ka yara mind duwanta ama ka qalbi duwan tahay markaadan waxba ka fahansanayn
oo dhakhtarkii si loo abaaro aadan ogeyn, dhibka ka imaan karo, qarashka ku bixi karo, dheefta ka imaan karto, uurka, ilmihii oo halka badan oo mataano 3 kugu noqon kara calooshaada, nafaqa ma laga heli karaa jirkaaga, odagu diyaar ma yahay, adigu diyaar ma tahay. dadka qaar ayagaaba shaqaalaa oo maaragtay odagii caawiyo oo guurkii noloshii biilashii caawiyo. haddii adiga aad u fariisato arrimahaas oo la yiraahdo hal siiyo gabadhii, hala nafaqeeyo gabadhii, odagii misbixin karaa. marka waxaad moodaa more and more inaan sii dhexgalayno sida adduunyada kale looga shaqeeyo. adduunyada kale waxay harta cad la taagan yihiin, ma awoodi kara beebi. meesha annaguna aan ka qalbi xaaranahay oo allahna siiyee jaamacadeennu ay awlaadu tahay. khayr allaha ka dhigo awlaad khayr qabtana allaha keeno. waxaa laga yaabaa inaad awlaad badan jeclaan lahayd, 5 6 ka badan 10, qof walba intuu ilaahay siinayo allahna siiyo. marka waa lees wareystaa, iljini ilinsi allah ka haayo, safarkaana maaragta allah kuu fududee, dhammaanteen allah naga haayo, duca layskama reebeen. safarkana allah noo fududee inta u jaan qaaday qodaas iyo dhinacaas. marka insha allah waxaan idinka codsanaa horta marka hore inaad ducaysataan. gabar walba waxaan ku waani lahaa saaxiibtinimo iyo maama ahaan iyo walaal ahaan iyo ehel ahaan aan u sheegi lahaa, waxba ha raacini qalbigaaga. marka hore ducayso, odagaaga, sawjkaaga, ilaahay baa leh, saaxiib la noqo. ataag badanaa dhici karo, mar adigiyo isla ciilbidaayo oo brogramkii iyo arrimihii uu dhakhtarka kuu qabanayay, testigii iyo jawaabihii iyo qarash ku baxaa iyo meel loo aadaa loo qasdayo oo loo aadi doono, hadday noqoto magaalada gudaheeda iyo waddanka gudaheeda iyo waddan kaleba, waqtiyaa kaa galaya. maanta meeshaad aadda waqtiyaa kaa galaya. marka intii adigoo dhabarka ku ritay ayaa haddana ataag dhici karaayoo ah in xataa guurkiinii la khilaafo oo lasoo dhexgalo oo laysku kiina quuri waayo maadaama awlaaddii ay kaa daahday. marka adkaysigeeda lahow waa gabadhay ka daaheen, gabadhay kasoo daataan, gabadhii damage ka tabanaysa xibinta taranka, amaba sawjkeedii uu yahay nin maanta shahwadiisii aynan shaqaynaynin. marka wax walba waa laga soo kaban karaa. marka waa sidii loo yiri abaaro waa haraysaaye eentay reebaysaa daran. arrinkan infertility waa arrin laga kaban karo insha allah. qof walboo tabanayo islaamana allah inuu kasoo kabto, dabadeedna si dabiiciya u dhaliyayaa iyo si dhaqaatiirta ay caawiyeen u dhaliyayaaba dhal kheyr qabto, caafimaad qabto, allaha naga soo sarifo. aamiin yaa rabbi. marka kheyr allaha idin siiyo. waxaan rabaa inaan idiin sheego, qaybtan waa qaybtii 2 ama part 2. waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo, wuxuu waa safar muddow soconaa. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay sheekadeenu soo afjaranto, si dabiiciya oo naturalna loo qaado ilmaha oo loo dhalo. hadday dhici weyso soo maaha, qalbigaagoo degan, adigii odagaaga ama adigii sawjkaaga oo isku xiran oo saaxiiba, ku qanacsan qadarta alle, inaad isku duubnaataan. maanta haddaad test doonaysaan, wada ducaysta, wada doona. haddii wax ka yimaado ku sii ballama afeefretri Soomaali ama adkaysi dambe, ku ballama ilaahay idankiisa iyadoon lays dhaarinaynin. laakiin ballanta iyo dhaarta waa kala labo. ballantu waa ballan laysla qaatay oo layiri waa u simanahay arrinkan. haddii adiga lagugu dhago, ii dulqaado oo i caawi oo i dabiib oo ii ducee oo i caafimaadkayga saan uga shaqeeyo, falkeeda ila gal. haddii asiga lagu dhagana saasoo kale. marka waxaa muddaa annagoo qalbi xaaran oo iska daacaday inaan balaqbalaqlayno meesha tagno. haddii la yiri odagan yar wuxuu meesha ku haayo male waa nagiigane, inaanba difaac galno oo buuq, dareen, gafurdhuudhuub, balaayo, buuq la furo. gabadhana same, meeqa gabadaa saasoo kale ku dhacday oo aan markii dambe la shaqeeyay oo odagii ka cararay oo ka tanasulay, laakiin iyada tartiibteeda inay isku nafaqaysay, niyadeeda dejisatay, ilaahay bariday, maantana iyadii ay dhalayso tii loo cararnay ayna dhalaynin. waa mucjiso, waa wax yaab leh. marka gacan la barkan doono ilaahay baa og. arrinkan maadaama uu yahay arrin test ah, anigu waxaanba u arkaaba inuu yahay itixaan, guurkii la itixaamay oo xagga awlaadda laga itixaamay. marka hadday awlaaddii soo daahday, annagaana lagu fiirinaya sabarkeena iyo iimaankeenna. fadlan ilaahay u daaya awoodda, ducaysta, isku duubnaada insha allah. dadka kalena yay idinka macaashin oo isku kiina dirin oo maaragtay idinku mashquulin insha allah.
dhakhaatiirtuna yay idin dadejinin waayo annagu waxaan nahay Soomaali dadka Afrikaankan ka midna of course laakiin Soomaalida waxaad mudaa dadka ugu badan ee dhakhaatiirta specialistiga ah ee infertilityga ku howle aad u daydayo waayo annagu waxaa dhulka nala dhacay dietkeena cuntadeena wadamada kale Afrika hadaa tagto qudaarahooda waad yaabaysaa qudaaraha ay haystaan waad yaabaysaa iyo siday nin iyo qof dumaraba reerkoo dhan ba iskugu duuban yihiin cagaarka u cunaan ee soorta u cunaan ee diirta u cunaan ee fruitka u cunaan xoogooda iyo waad yaabaysaa iyo tabartooda maasha Allah annaga waxaana lagu saladay wax la yiraahdo bariis oo waliba nooca cad aan jecelnahay basmaatiga waxaana lagu saladay shaax oo aan jecelnahay caano yar oo bidaq lagu siiyo ama rinjigiisa ku cabna laakiin sokor iyo biyo la isku karkariyay iyo haday u badato xoogaa yar dhirta lagu dara ah oo heelka iyo waxa ku darsano sidoo kale macmacaanadeena waa jecelnahay oo inaan ka tagna ma jecelin shishimooga iyo cunka iyo sambuuska iyo maarta xalwada malaw waxaasaan jecelnahay baastadii halkaas ay ku soo qotontaa iyadoo suugo wadato waxaas dad loo dirayaana marka dhiigaagi waxa laga waayay fitamiinaad daas waa hormoonkii adoo gabar yar u hoobtay wiilkana sidoo kale dareenkii waa yaraaday tabartii waa yaraatay waxaantii waa qalashay shahwadii waa yaraatay adigu dadka waanu egnahay laakiin waa ka duwanaa qof Soomaaliyeed hadduu istaagiisa ka dhaco oo la yiraahdo qofka waxaas u dhacay anigu maanta ma aamini weynaaye sababtoo waa ogahay sokorta ku badnaan karto saliida ku badnaan karto macaanka ku badnaan karo xataa xanaaqan ku badan wax walba waa ka aradana dabeecad hadhihin dulqaad hadhihin waxaan ku leeyahay annaga dhanba saboolnimada waa nala daba saladay qofkii wax heli karana dhakhtar la daba taaganaa kaniini ii sheeg kaniinga lagu siina waxa laga yaabaa inuu kaaga daro bacrimis yahay kaniinku magacu kaniinka wadaya marka haddii wax lagu siinaa ma fitamiina ma wax ku soo nafaqo celinaya dawadii ma taqaana cuntooyinka loo qaato maraqyada loo qaato cabitaanada loo qaato insha Allah hurdadii farxadii dhiirigelintii isku duubnigi khayraad badan xoogaa yar nagu yar Allah noo siyaadiyo marka halkaan waxaan u soo doonanay inaan qalbiga ku dajirsano inaan ka maaragtay foolajignaana ciladaha inaan ku talagalno wixii soo bixi karo ma qarasha ma waqtiya ma nafaqa wax walba inaan ku talagashid marka insha Allah qayba ku socon doonto halkaan hadaa saaxiib ku noqoto oo nala fariisato insha Allah qaybaha kalena way ku imaanayaan maanta inoo bilaabatay qaybihii way soo socdaan mar walba midaa ku imaanayso hadaa awoodid noo duceey suulka kor soo taag insha Allah ma aha qasab inaad adigu u baahan tahay haddii aadan u baahnayn xataa arag gabadha Soomaaliyeed dhibkay mari karto gabdhuhu way noo hadli doonaan insha Allah markaan bilaabay inaan live soo galo ilaahay idankiisa number jiro nili soo dhigi doona inta oo aad si toos iiga soo wici kartaan oo ii sheegi karta experience-gaagi waxaad kala kulantay dhakhtarkii private ka hood aaday insha Allah iyo haddaad ku sii socotidba waxyaabaha ka qayb noqon karaayo tabaabashaysigaaga marka waxaan ugu badatay waa layga soo nixiyay waa lay soo dayriyay waa lay soo diiday ukun gabar kale ma rabtaa baa leeyiri maamoy maxaan ka sameeyaa qof dhanoo noolo dhaqmaayo reerkiisii weli diyaaro ah laakiin la yiri wax ukuna ama wax beed ah ama wax naala ah ama wax soo socdo ama wax qoyaan male wixii buu isla wada qalaleen waana qurux badan oo maanta indhaha maasha Allah leema dhamee karo shaydaanka leega naaraya marka sidee wax yihiin xageen wax ka bilaaba sideen isku soo nafaqo celiyaa anigu marka gabar walba gooni ulama hadli karo haddii xataa diyaar u tahay inay balansato ma xamili karo ma la hadli karo hal qof leenahay marka halkaan fariiso gambarkaaga soo jiido waa ujeedaa meesha dhan gambaraa saaran ama kursi yaraa saaran soo jiido usta yar diyaarso koob shaaxo green tea wax soo samayso iyo smoothie wax soo samayso qalaw markuu soo yiraahdo meesha ku nasal laheed raadso kolaad xariga dhagaha gashato danahaada ku raacatane saaxiibtaahanahay saaxiibteeyaa tahay waa ku jeclahay reere aan jeclaatihiin waa ii duceysiin waa idiin duceeyaa bal qaybtaan kale oo noob specialka ahne dhagayso halkaa waxaa ku yaala kelmadda la yiraahdo relax waa isdeji yaa naso dib u deg waa daalnasaan u ordayno information u raadinayni khayr badan iyo farxad badan ilaahay inoo wada weydiina fadlan haddii aad IVF u socoto fariisa channelka dumarka Soomaaliyeed qayb special loo diyaariyay ayaa halkaan ka bixi doono quseeyo xaaji maco canjeero min sawjkaaga quseeyo adiga xaaji maci
ما شاء الله سود دواذا دمانتين إيه سود دواذا صاحب اسكو صو نقضي ومال والب اسكو وعضي أما باسكو عصب الله نغياله اسكو صو نقد ونعكسن aad waxaan u jeclahay hadday noqoto ina arrinkaaga shaan inaan la walwalin inaan la walbahaarin inaan la dareemin kurbada iyo naxdinta xataa gabdhaha qaar lagu yiraahdo blood pressure kaaga jeedna ilaa qalqal maxaa la dhihi doonaa mayga dhamaatay maxaa la dhihi doonaa tubooyinka miyaa xiran maaragtay ugxansidihii miyaa qariban hormoonkii miyaa qariban thyroidkii miyaa kacsan miyay dhacsantahay gabdhihii naftaa kaa dhamaatay naxdin qaaraan habeenkii seexanayn qaaraan markay ay maqlaan codkayga oy soo wacaan oon halow dhaho iska ooyaay wadaa habar yar maxaa kugu dhacay habar yaree ugxaan dhan malihi noloshayda masaanaan ku akhrirsana oo hintooda dhamaatay marka hadiiba la heli karo wax ugxaanti kobciyo wax qalbiga dejiyo hadday noqoto waano hadday noqoto talo saaxiibtinimo nafaqo waxay noqotaba annaga inta ilaahayna garasiyo karaankeena agtaaday taala bal adigu soo dhawow adoo duceysana ilaahayna ugu xamdinaqa saaxiibadan Soomaaliyeed ee helay dumarka ah dantoodii u soo jeestay hadday tahay qaybtan fertility-ga hadday tahay iska dhiirigeli hadday tahay isku nafaqee hadday tahay dantaada garo reerkaaga iyo wuxuu alla u qorayna qadarta qaado I love you kulligiin isku soo noqod wanaagsan khayr badan iyo farxad badan ilaahay inoo wada weydiina hadaa awoodaan nala fariisto xasil noqdo nala jooga subscribe ka taabsada beelkana taaba si aad uga warqabtid hadaa subscribe taabatooda beelka taaban ama gambaleelka taabsanin wax soo dhacaa waru ma haynaysid marka gambaleelka furo insha Allah subscribe ka saaro hadii kale oo kuu qaban waayo oo inta dhageysato wixiina ay kuu qaban waayeen macquul inaadan email ku xareysan meesha waxaad samaysaa dumarka Soomaaliyeed qoro part 1 haddaad dhageysatay qaybtii koobaad haddaad dhageysatay qaybta labaad meesha ka dhex doon way kuu soo bixi doontaa insha Allah dumarka Soomaaliyeed qaybtii koobaad qaybtii labaad qaybtii saddexaad barnaamijka IVF ma u socotaa la soco subscribe ka duu kuu qabtana gambarkaaga soo jiido meesha waxaad ka tahay madax sare safka hore soo fariiso khayr badan iyo farxad badan ilaahay inoo wada weydiina I love you kulligiin خير بدن هياي وإذا جعلها أمور تقير الله نوغ ديغا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته